Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waa idin salaam walaalaha qaaliga meel walbo dunida ka joogtaan. Kusoo dhawaada janalkeyga. Halkaad igala socotaan waa Fahima Janal. Soo dhawaada asxaabta qaaliga ah. Maanta waxaa idin wadaa qiso ku dhacday gabar Soomaaliyeed. Qiso cajiib ah. Gabadhan waxa ay tiri waxa aan guursaday 12 nin. Mid i cajabiyana ma arkin bay tiri. Qisada tan ee gabadhan ku dhacday markii ay guursatay ninka 13aad ayaan maanta idiin wadaa. Gabadhan ayaa qisadeeda iigu soo gudbisay dhanka Facebook-ga. Balaa idiin bilaawo. Gabadhan waxa ay tiri waxaan ku noolaa marka hore Soomaaliya oo aan kasoo bilooway in aan guursado ninba ninka kaleeto oo aan markaasi isleeyahay naftaadu way ka heshay ama waa uu ku dhaqan karaa. Mar walba waxa ay tiri yaraanteedii ninkii iigu horreeyay oo aan guursado waxay tiri nafteeda kuma qancin. Muddo ayaan isla joognay, waan kala tagna bay dhahday. Nin kale ayaan guursaday, sidoo kale bay dhahday nafteedu maysan ka helin oo waan kala tagnay. Sidaas aniga oo ku jira Soomaaliya gudaheeda intii aan joogay waxaan guursaday bay tiri 5 nin. 5tii nin ma arkin bay tiri mid i cajabiya. Waan kasoo tagay bay dhahday Soomaaliya waxaan imaaday wadanka Kenya markii aan joogo sidaas si la mid ah nin baan isbarano oo isguursanay. Nin kasta markuu muddo yar i qabo waxay dhahday waxaan arkaa cilado fara badan oo markaas aniga nafteeda aysan ku qancin. Gabdhaha asxaabteeda mar walba waxay tiri marka aan u sheego waxa ay igu dhahaan 12 rag ah ma wada xumo ee adiga xun. Ma rumaysan bay dhahday hadallada markasta ay igu soo jeediyaan gabdhaha asxaabteeda ah. Kenya markii aan imaaday sidaas si la mid ah 5 nin oo kale baan ku guursaday bay dhahday. Mid kastana markii dhowr bilood i qabo waan iska fura oo nafteedii ninkii ay raadinaysay ilama noqdo. Aniga oo 10 nin ku dhawaad kusoo guursada Afrika ayaan waxaan usoo tahriibay bay dhahday qurbaha. Caruurna waan soo dhalay oo waxay dhahday nimankii aan horey usoo guursaday. Nimanka qaar baa awlaad u dhal kubana uma dhalin bay dhahday. Waxay dhahday waan soo tahriibay caruurteedii waxaan uga soo tagay Soomaaliya. Waxay dhahday waalidkeyga ayaan caruurtii uga soo tagay. Waxaa usoo tahriibay qurbaha Liibiya ayaan soo maray. Waxaan imaaday bay tiri ugu dambeyn Yurub baan soo galay. Kadibna waxay dhahday muddo yar oo aan kaam ku jiray ma ahane waxa aan bilaabo inaan nin kale guursado. Nin aan aniga iyo asiga isku barana kaamkii bay tiri ayaan guursaday. Dhowr bil markuu i qabay waxaan nafteedii baa waxa ii sheegtay bay dhahday ninkan in uusan midkii aan doonayo uusan ahayn. Ninkii waan isdagaalno oo waa isku dhacna bay dhahday. Sidaas ayuuna igu furay. Muddo yar baan jooga bay dhahday. Haddana nin kale ayaan guursaday. Adiga waxay dhahday ugu dambeyn ninkii 12aad ayaan guursaday kadibna waxay dhahday waan kala tagnay. Waxaa ii joogaan bay tiri caruur kala aabba ah oo nimankii aan soo guursaday midna inaan ubad u dhalo midna aan waxba u dhalin ayaa dhacday bay tiri oo caruurteedu waxay ahaayeen 6 caruur ah oo midba kala aabba ay kala yihiin kulligood waa 6da caruur ee. Waxay dhahday qurbihii ayaan muddo joogay. Midkii ugu dambeeyay ee 12aad i guursada waxay dhahday waan isku dhacno waan isdagaalnay waa fura bay dhahday. Waxa aan damcay waxay dhahday caruurtii inaan u dacwoodo oo aan keena bay dhahday qurbaha. Dacwadoodii baa igu adkaatay waqti dheer. Hooyadeeda oo waayeel ahna way joogtay bay dhahday oo aniga iyo gabar kaleetana dhashay. Markastana hooyadeeda ayaan u laaban jiray oo aniga oo Yurub jooga ayaan aadi jiray bay dhahday Soomaaliya. Arrimihii ayaa igu adkaaday waxaan la damcay bay dhahday inaan Soomaaliya u guuro. Dacwadii caruurtana waa igu adkaatay. Sidoo kale hooyadeena markasto waxay i dhihi jirtay hooyoy soo laabo oo ila joog oo awalba waxay dhahday tahriibkeyga iyo bixitaankeyga hooyaday maysan ku faraxsaneen. Waxay dhahday waan soo laabtay waxaan usoo guuray bay dhahday Soomaaliya. Kadib waxay dhahday nin baan isguursanay. Ninkii 13aad baan isguursanay bay tiri. Ninkaasna waxa uu ahaa bay tiri nin curyaan ah oo markii hore oo aan guursanayay ayaan ku ogaa ciladaas. Waan wada sheekaysanay. Waan u sheegay bay tiri 12 rag inaan soo guursaday welina aan arkin mid i cajabiyo. Laakiin ninkii curyaanka ahaa baa wuxuu dhihi jiray bay tiri dhib ma laha oo waxaa laga yaabaa in uu dhiman yahay ninkii aad ku degi lahayd. Ninkii baa waxay tiri isguursanay. Hooyadeeda baan u sheegay. Waxaan ku dhahay bay tiri hooyoy ninkan baa isguursanay. Hooyadeed waxay igu tiri waan ogaa inaa qof fudud aad tahay
wayna kaa suurtooda ama waa kaa suurtagal inaad nin cuuryaana guursatid. 12 nin ee lugaha lahaa ama cagaha qaba haddii ay ku anfici waayeen, hooyoy ma kula tahay in nin luga la'aan ah uu yacni aad ku degaysid? Hooyo wax kasta waa calaf baan dhahayay tiri. Ninkii baa isguursanay, waan degnay. Waxay dhahday hadda ninkii baa i qaba. Waxay dhahday ninkii waa nacay. Ninkii aragiisa ma arki karo, waan dhibsaday bay tiri. Sidii nimankii hore aan u nici jiray ka daran baan u nacay. Ninkii waxay dhahday hadda weli maanan dhihin ifur ama aan kala tagno, laakiin waxay dhahday nafteedii ayaa waxay dareemaysaa ninkan inaysan rabin oo aniga aan ku qasbayo. Nimankii hore ee aan soo kala tagnay inaan nafsi ka soo galay iyo in yacni nafteeda midkii ay ku degi lahayd weli uu ii dhiman yahay ayaan kala garan karin ayay tiri. Hadda ninkii curyaanka ahaa ay qabo 6 caruur ahayd ee kala aabaa ahaydna waa ii joogaan. Ninkiina waa isdhibsana oo waa isnacnay. Weli uma soo bandhigin bay tiri inaan kala tagno maadaama uu yahay nin curyaan ah. Waxaan isleeyahay ama niyadda ka jabaa. Nafteydiina waa ku kari la'ahay sidii si la mid ah ee nimankii hore aan u soo nacay ayaa ninkaana u nacay. Maxaa igula talin lahaydeen walaalahayga ayay tiri gabadhan. Sidoo kale waxay dhahday ii soo duceeyo Ilaahay midkii aan ku degi lahaa in uu yacni aniga iyo odagayga inuu Ilaahayna isku keen barakeeyo noo soo duceeyay bay tiri. Sidoo kale talo ahaan maxaa isiin lahaydeen maadaama nafteedii aad u dhibsanaysa ninkii aan gadaal ka guursaday ee ninkii 13aadna ah maxaa igula talin lahaydeen? Talo ayaan idinka rabaa bay dhahday. Asxaabay si wanaagsan ula soo taliyo walaasheena. Calafku sidiisaba waa cajiib. Ilaahay waxa uu kuugu talagalana cidna kaama celinayso. 15 nin iska daayay hadduu Ilaahay kuugu talagal inaad 20 nin guursato waad guursanaysaa. Waayo waa waxaan wax Ilaahay xaggiisa ka qoran waana calaf. Marka walaalahayga talo aad u wanaagsan baa la idinka rabaa inaad soo siisaan gabadha walaasheena ah sidaad ula soo tali jirteen. Asxaabtii hore idinkuugu soo gudbin jirtay talooyinkooda waan idin mahad celinayaa. Markasta mahad celintiina kama daalo. Qisooyinkan insha Allah waxaan isku dayayaa inaan idinla soo wadaago haddii ay asxaabta ila soo wadaagaan oo qiso aan la ila soo wadaagin aniga ma soo geliyo. Waad aragteen channelkayga, walaalaha channelkayga ku xiran ayaa ila soo wadaagaan. Marka qisadii la ila soo wadaago waxaan isku dayayaa adinkan inaan idin soo gudbiyo insha Allah. Wixii talo ahna aad la soo wadaagtaan gabadhaas. Waad mahadsantihiin waan idin mahad celinayaa. Haddana waxaan idinka sugaynaa gabadha walaasheena ee hadda Soomaaliya joogto inaad la soo talisaan. Taladiina ayaan sugaynaa qaybta commentiga noogu reeba. Waad idin mahad celinayaa markaad muuqaalka daawataan. Fiidiyowga laagta dhac ku sii waa ii dhiirigelin si aan u soo badiyo muuqaalka. Waan idin mahad celinayaa sidaas iyo muuqaalka xigo. Waxa idinkaga tagayaa nabadgelyo.